وحويا ولا ليالين ما أنت إسكو براروجينينا دينتنا إسلامكو مشكلات كستا يدباتك كستا حل بيوها الشيء وحل بيوصى ميسي يوضى الله مرحل كيدا صبون لماذا iyo diinteenu inay u aragto halis iyo khatar bulshada muslimiinta ah iyo aadanahaba halis ku ah sidaas waxa inoogu muxuu ahaa nagaga filan tusaale nabigeena calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu ka magan gali jiray faqriga wuxuu waliba israaciyay isku lamaaneeyay gaalnimada iyo faqriga magangalkii gaalnimada ilaahay inuu ka magan galo gaalnimo iyo saboolnimo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu allahumma inni a'uudu bika min al-kufri wal-faqr wuu xidhiidhiyey culimmadu waxay yidhahdaan muxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam u xidhiidhiyey waxa sababaha ugu badan ay dadku u gaaloobaanba yani faqriga ayaa sabab u noqdaba taasi waa shayga waa cadayn inuu muxuu ahaa islaamku halku ka taagan yahay islaamkeenu haddaba walaalayaal xal buu u sameeyey xalka ugu wanaagsan xalka uu u sameeyey waa maxay waxa weeyaan al-amal wal-iktifaa adh-dhaati qofku inuu shaqo tago oo shaqo samaysto iskuna filnaado ala nafsihi wa ala man ya'ul ciduu mas'uulka ka yahay iyo naftiisaba inuu u shaqaysto u shaqo tago ayaa islaamkeenu uu ina faray taas baana xalka ah walaalayaal waxa daraasooyinka ugu dambeeyay ee la sameeyay waxa la ogaaday in ummadaha ku tiirsanaada kaalmo iyo muxuu ahaa mucaawinooyin inay had iyo jeeraale yihiin muxuu ahaa faqrigu iyo saboolnimadu inay ku siyaado aanay waxba ka xalin mushkiladooda haddaad cid kale ku tiirsan tahay ama qof ahow ama qoys ahow ama qaran ahow inta aad cid kale ku tiirsan tahay ma baahi baxaysid saboolnimo iyo baahi daris baa tihiin waxa kale muxuu ahaa waxa ugu muxuu ahaa wax ka qoray oo runtii tusaale fiican ka bixiyay gabadh afrikaan oo reer Zambia ayaa waxay qortay kitaab la yiraahdo al-musaacadaat al-mumayyita kaalmooyinkii wax dilayay kaalmooyinku waxaanu u haysanaa inagu inay muxuu ahaa wax taraan laakiin waa dilin dadban walaalayaal waxa la ogaaday kaalmooyinka had iyo jeeraale inay yihiin waxyaalaha ugu badan ee dawlad muxuu ahaa ujeedooyinka laga leeyahay ka mid tahay qaarkood in wadankaasi aanu istiqraar helinba xatusaale inoogu filan walaalayaal dawladeennan waxaynu ku unugnay markaynu leenahay walaalayaal kaalmadu ama ku tiirsanaantu ma aha hataa adduun oo keliya arrinkaaga iyo taladaada xataa inaad cid kale marti uga noqoto ood ummad kale aad marti uga noqoto ood u haysato adigu inaanad muxuu ahaa taladaadu meel mar aanay ahayn ay dad kale aad marti uga noqoto iyada laftigeedu waa nooc saboolnimada ka mid ah walaalayaal inaad muxuu ahaa way badan tahay ku tiirsanaantu inaad waxaad cunayso aad ku cid kale marti uga noqoto inaad arrinkaaga marti cid kale uga noqoto way inaad cid kale ku tiirsanaato dhinacyo badan baad kaga tiirsanaa waxbarashada iyo manhajka lagu dhigayo xataa inaad cid kale ku tiirsanaato ayaa iyada laftigeedu muxuu ahaa saboolnimo marka waxa la ogaaday walaalayaal in xataa
waddanka cid kale arrimihiisa ama ha noqdaan adduunyo ama arrin ha noqdaane waddankaas inaanu degin ayaa la ogaaday. waxaa kaloo runtii la ogaaday daraasaadka la soo saaray in corruptionka iyo musuqmaasuqa waxay ugu badani ay iyagu sabab u yihiin.